السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ardayda soo dhawaada waxaan guda jirnay chapterka 8aad waxaan bilaabnay casharka koowaad oo ahaa aragtida Pythagoras waxaan ka qaadanay aragtida Pythagoras wixii ka hadlaysay dhinaca ugu dheer saddex xagal quman oo loo yaqaano laba jibaarka shakaalka inuu la mid yahay laba jibaarka dhinacyada kale ee laba jibaaran. sidoo kale waxaan soo qaadanay example 1 iyo example 2 codsi ka yimid ardayda qaar. waxaan ka bilaabi doonaa ardayda Pythagoras. ardayda qaar waxay soo codsadeen inaysan fahmin casharkaas. si ay u fahmaan waxaan kusoo celi doonaa qaacidadii proofka qaabka loo sameeyo, qaabka loo soo dheeraandheri qaacidooyinka, kadibna example 3 ayaan qaadan doonaa. haddaba ila socda sabuurada aan isla aadno soo sheegnay casharkii hore. haddii aan dib ugu noqono aragtida Pythagoras soo qaadanay. hadhaanay aragtidan waxay ka hadlayaa dhahnay laba jibaarka shakaalka. aan sawirano saddex xagal quman aan sawirano marka ugu horeysa aan sawirano ila socda qaabka loo sawirano. ashkii hore kusoo qaateen sidoo kale kana loo sawiraa laba xagal quman. waxaan dhahnay halkan waxaa loo yaqaanaa shakaal. halkan waxaa loo yaqaanaa shakaal. halkan waxaa dhahnay waxaa loo yaqaanaa kan waxaa loo yaqaanaa b. kan waxaa loo yaqaanaa c. aragtida Pythagoras waxay ka hadlaysaa dhahnay dhinacan saddex xagalka ugu dheer waxaa loo yaqaanaa laba jibaarka shakaalka. aa loo yaqaan dhinaca kasoo horjeedana c ala. dhinacan waxaa loo yaqaanaa dhinacan waxaa loo yaqaanaa b. waxaa dhahnay marka dhinacan ugu dheer saddex xagalka waxaa loo yaqaanaa dhahnay laba jibaarka shakaalka saddex xagal quman. waxaa loo soo gaabiyaa c. aa loo soo gaabiyaa laba jibaarkeeda wuxuu la mid yahay dhahnay wuxuu la eg yahay dhinacan oo laba ku jibaaran. dhahnay waxa uu la eg yahay wadarta laba jibaarada dhinacyada kale. wadarta laba jibaar dhinacyada kale waxaa laga wadaa aadan oo laba ku jibaaran oo lagu daray wadar isku dar waa laba ku jibaaran lagu daray laba ku jibaaran. halkan intaana waxaa loo yaqaan dhahnay aragtida Pythagoras. sidoo kale waa loo qori karaa kan soo hormariyo halkan kana dhigi kartaa
a laba ku jibaaran lagu daray ba laba ku jibaaran waxay la mid tahay a laba ku jibaaran. hadda waxaan haysanaa waxaan wixii a ah markaan rabo inaan helo eedan kaligeed maxaa sameynaa kan inaan helo markaan rabo maxaa sameynaa soo qaadana kan soo qaado kanaan soo qaadanay dhinacaan markaa rabtid inaad heshid lambar 1 waxaan bilaabeynaa proofkii dhinacaan inaan helo markaan rabo dhinacaan a'daan inaan raadiyo markaan rabo waxaa leenahay a laba ku jibaaran square waxay la mid tahay leenahay a laba ku jibaaran waxay la mid tahay a'daan oo laba ku jibaaran soo qaadana a'daan c oo laba ku jibaaran laga jaray dhinacaan kale aa ka jaray ba laba ku jibaaran waa laba ku jibaaran aada kaligeed hadda a laba ku jibaaran noo qoran si loo soo helo a'daan kaligeed labada meel waxaa gelinaa square root hada jibaar halkaan waxaa gelinaa hada jibaar kan waxaa gelinaa hada jibaar halkaana intaana waxaa gelinaa hada jibaar da waxaa leenahay hada jibaarkan iyo labadan isla tuur inta waxaa noogu harayo a waxay la mid tahay calaamadda soo qaado hada jibaar square root a laba ku jibaaran laga jaray ba laba ku jibaaran qaacidadan waa qaacidada lagu helo marka lagu weydiiyo waxaa isticmaale qaacidadan dhinacaan marka lagu weydiiyo qaacidadan isticmaale marka b lagu weydiiyo maxaa sameynaa isla sidii oo kale intii soo qaadanaa waxaa soo qaadanayna intii soo qaadanaa waxaa leenahay a laba ku jibaaran isla sharciga soo qaadanaa lagu daray ba laba ku jibaaran waxay la mid tahay a laba ku jibaaran daw ba'dan inaan helaa rabo markaan ba'dan ba laba ku jibaaran taa soo qaadanaa kow ba laba ku jibaaran waxay la mid tahay a laba ku jibaaran oo laga jaray a soo qaadana markaan a laba ku jibaaran waxay dhinacaan ba'dan marka lagu weydiiyo waxaa dheer dhinaca saddexaadka ugu dheer oo laga jaray dhinacan yarka labada meel waxaa gelinayaa square root labada meel waxaa gelinayaa hada jibaar labada meel waxaa gelinayaa hada jibaar labada meel waxaa gelinayaa hada jibaar square root waxaa leenahay labadan dhinacan labadan iyo hada jibaarkan isla tuur halkan waxaa ku haraayo ba waxay la mid tahay square rootkan qaybtan ka bixinin sideeda usoo qaado waxaa leenahay a laba ku jibaaran laga jaray a laba ku jibaaran haddaba ba waxaa lagu helaa ba waxay la mid tahay
a laba ku jibaaran laga jaray a laba ku jibaaran. Waxaynoo hore qaadada saddexaad oo ah a inaan raadino c. haddaba a kan soo qaado siis u soo qaado waxaa leenahay a laba ku jibaaran waxaa lagu helaa a laba ku jibaaran lagu daray ba laba ku jibaaran. saa darteed waxaa leenahay a laba ku jibaaran hadda intaa la eg si a kaligeed loo helo labada meel waxaa gelinaynaa square root. labada meel waxaa gelinaa xidid jibaar labada meel xidid jibaar waxaa xidid jibaarkan iyo labadan isla tuur. dabinta waxaa ku haray a waxay la mid tahay xidid jibaar xidid laba jibaar a laba ku jibaaran lagu daray ba laba ku jibaaran. markaas waxaa ku eg qaacidada saddexaad oo loo yaqaano a ama c. ku celiyo dulmar mar kale kan waxaan dhahanay saddex xagal quman markaan ka hadlayno aragtida Pythagoras waxaa dhahanay dhinacan saddex xagalka ugu dheer waxaa loo yaqaan c. laba jibaarka shakaalka aa loo yaqaan marka laba jibaarka shakaalka saddex xagal quman loo yaqaano caadaan waxay la mid tahay dhahanay waxay la mid tahay wadarta laba jibaarada dhinacyada kale. wadarta laba jibaarada waxaa laga wadaa dhinacaan isku darkooda oo jibaaran saa darteed waxaa dhahanay a laba ku jibaaran lagu daray ba laba ku jibaaran. saa darteed waxaa dhahanay qaabkan sidaan iyo sidaan labada waa loo qori karaa. sidaas ila mid ah waxaa dhahanay a kaligeed marka raadinaysa eedaa marka lagu weydiiyo eedan dhinacaan markuu ka maqan yahay waxaa sameynaya radical qaadadan xifdi radical a laba ku jibaaran laga jaray ba laba ku jibaaran. sidoo kale qaacidada labaad waxaa soo qaadanay waxaa raadinaynaa b ba'daa marka raadinaysa dhinacan saddex xagalka ugu dheer waxaa ka jiray dhinaca saddex xagalka ugu yar. dabintii sameynay waa qaacidada labaad. qaacidada saddexaad sidoo kale c markaa raadinayno a laba ku jibaar dhinacan ugu dheer markaa raadinaysid labadan dhinaca isku dare labadan dhinac waa isku dare square root-aan ka saare. waxaan filayaa in aragtida Pythagoras si fiican aad u fahmi doontiin idinkuna ku ceshceshta cashirkaas. haddaba aan iska masaxno tusaalaha saddexaad maadaama cashiradii hore aan kusoo qaadanay tusaalaha koowaad iyo labaad waxaan ku darayaa tusaalaha saddexaad ila socda sababta waan iska masaxeynaa tusaalaha saddexaad tusaalaha saddexaad hadii aynu u guda galno daba kow waxaan sawiranaynaa saddex xagal quman aan sawiranaynaa saddex xagalka quman qaabka loo sawiro hordhici aan ugu soo hadalnay qaabka la raba loo jeedin karaa leenahay number one halkaan ugu shaqey doonaa number two halkaan ugu shaqey doonaa insha allah. tusaalaha saddexaad labadaas oo kooban yahay 1 and 2 leenahay wanka marka leenahay markaan sawirayno qaabkaan rabna u sawiri karnaa xariiqaan sawiro waxaa leenahay
saddexagal kuman sawiro qaabka loo sawiro casharkii hore kusoo qaadatay iska fudud waaye. kadib waxaa lagu siiyey dhinacaan 4 sentimitir. dhinacaan waxaa lagu siiyey 3 sentimitir. hadda dhinacaana kaa maqan. casharkan hore usoo qaadanay dhinacyada waa soo kala barateen, sidaan soo kala barateen. waxaan leenahay dhinacaan dhinaca saddexagalka ugu dheer waxaa loo yaqaanaa dhahnay laba ku jibaaran ama laba jibaarka shakaalka waxaa lagu helaa wadarta dhinacyada kale oo laba ku jibaaran. afartan oo laba ku jibaaran inta waa aniga ku sheegay intana waa b, intana waa c. dana marka afartan oo laba ku jibaaran afarta soo qaad qaacidada kow laba ku jibaaran lagu daro laba ku jibaaran. waxaa dhahnay marka waa ku bedelanaynaa kaligeed. marka hadda soo raadinayna waxaa dhahnay kaligeed waxaa lagu helaa inta square root ka saar inta jibaar ka saar equal waxaa ka saarna square root kanna waa ka saaraynaa dhahnay kan waa isla tuurnay radical dhahe marka radical laba jibaarka laba ku jibaaran lagu daray laba ku jibaaran. waa ku bedelanaa dhinacaan waa waxaa haysta 4 sentimitir dhinaca haysta 3 sentimitir. wax kale ma samaynaysa kaliya waa ku bedelanaya. dhanay square root-kaaga soo qaado waxaa haysta 4 sentimitir square plus 3 sentimitir haddana saa darteed waxay la mid tahay square root afartan laba jeer isku dhig waxaa dhahnay 16 sentimitir square 10 sentimitir square plus saddexda laba jeer isku dhig waa 9 sentimitir square laba jeer isku dhig waa sentimitir square. hadana c equal waxay la mid tahay square root kiisa usoo qaado hada jibaarka laba jibaarka kiisa usoo qaado 16 lagu dar 9 6 9 lagu dar 15 waa 5 afarna halaa wataa walaal halka ku dar 2 5 waa sentimitir square na halka soo qaado sentimitir square kan iyo jibaarkan isla tuur 25 jibaarka way ka baxay 25 jibaarka waxay ugu baxdaa 5 sentimitir square kan iyo jibaarkan waa isla tuurna
waxaa ku haraa centimeter. dhinaca naga weydiiyey laba jibaarka shakaalka waa 5 centimeter. tusaalaha saddexaad qaybtiisa ayaa qaadanay. waxaan haddeer u gudbaynaa qaybta labaad. sawirkan sawirnayna marka hore. sawirka wuxuu u sawiran yahay qaabkan. qaabka la rabo sawirka loo sawiri karo, laakiin waxaa muhiim ah in dhinacyada ay kala fahmayso. qaabka aragtida u sawiri kartaa, laakiin saddex xagal quman ma yihiin. waxaa sawirta waa hadalka meesha ku taagan bas. qaabkaas hadda u sawiraynaa. haddaba qalinka aan soo qabsano. hadhaane waxaana la weydiiyey dhinacan kan waxaa loo yaqaan dhaanay kan waxaa loo yaqaan dhaanay b, kan waxaa loo yaqaan dhaanay c. hadaba waxaa dhahnay waxaana la siiyey dhinacan waxaana la siiyey 8, dhinacan waxaana la siiyey 10. cabirka aan raacino centimeter. 8 centimeter. hadaba waxaa lagu weydiiyey dhinaca b lagu weydiiyey. waxaa leenahay b waa soo qaadanay. waxaa leenahay waa soo gaabinaynaa. b waxaa lagu helaa laba jibaar square root laba ku jibaaran laga jaray dhinacan waxaa loo yaqaanay laba ku jibaaran. haddaanay b-ga soo qaado waxay la mid tahay square root waa lagu siiyey. waxaa lagu siiyey 10 centimeter. 10 centimeter. waxaa noo saaran square laba ku jibaaran waa waxaan haysano laga jaray. ka jara isticmaali markaan, waayo dhinaca ugu dheer dhinacan ugu dheer markaa haysatid kan iyo kan lagu weydiiyo ka jara isticmaali. marka dhinacan ugu dheer marka lagu weydiin labadan dhinac oo isku weeray oo isku dara orodhika laga saara lagu helaa. laba ku jibaar adeena waa 8 centimeter square. centimeter square centimeter square. hore u soco. bid waa soo qaadane. b waxay la mid tahay square root soo qaado 10 laba ku jibaaran 10 laba jeer isku dhufo. jibaarka kore wuxuu ku muujinayaa inta jeer ee tirada hoose la isku dhufanayo waa 100 centimeter. laba jeer isku dhufana centimeter laba jeer isku dhufo waa centimeter laba jeer isku dhufo waa centimeter square. iyaduna centimeter square minus 8 kan laba jeer isku dhufo 8 laba jeer isku dhufo waxaa dhahnay 64
لازم متر لو درس متر boqol laga jaray 64 waa 36 centimeter square na halka soo qaado labada meel waxaa gelinaa square root daba jibaarka gale anana 36 darbeed ba iyo waxay la mid tahay 36 waxay jibaar ugu baxdaa 6 centimeter square kan labadan iyo jibaar kan mustatuur inta ku haraayo centimeter horeeso macana dabna la weydiiyay waa 6 centimeter waa soo dhinaca b oo nala weydiiyay ardayda ku cusub muuqaalka haddii aad fiirsatid channelka subscribe saar like share iyo comment